السلام عليكم kusoo dhawaada muuqaal cusub muuqaalkana maanta waxaan ku qaadanaynaa haddii aad rabtid computer soo iibsatid weliba second hand ama computer cusub sidee ayaa ku dooran kartaa markaa computerka ugu fiican uguna fiirin muhiimka marka haddii aad rabtid inaad ogaatid computerkaasi qaabku uu yahay iyo wax walba oo ku saabsan ama xogta guud ee computerkaasi waxaad qoraysaa markaa qaybtan haddii aad isticmaalaysid Windows 8 iyo wixii ka hooseeya inta ay ku leeyihiin Windows 11 hadda isticmaalaysid qaybtan ayuu ku leeyahay seelata meelahan ayuu ku leeyahay asagana marka calaamadan search ayaa raadinaysaa kadibna meeshan waxaad ku qoraysaa dxdh ayaa ku qoraysaa qoraalkan meesha ku qorayo si fiican u fiiri dxdh kadibna waxaan qaabkan ayaa kugu soo baxaya marka dhufanaysaa open marka sidan ayaa kugu soo baxayso xogtan oo jeedin dhamaantooda waxay khusaysaa computerkani oo hal xabo kama tagay haddii ay tahay dhanka iyo maskaxda iyo haddii ay tahay dhanka iyo computerka gudihiisa iyo caadiyanba magacyada uu wato waxaas dhan buu ku soo sheegay marka hadda waxaan joognaa qaybtan system computerkan oo dhan ayuu inta kugu soo sheegay marka hadda ayuu ka bilaabaa daqiiqada aad furtid meeshaas wuxuu dhahaa current date yani taariikhda ayuu kugu soo sheegaa sidoo kale computerka magaciisa ayuu kugu soo sheegayaa haddii aad magac u baxsatay sidoo kale operating system ku jiro inuu Windows 10 yahay iyo inuu Windows ku jiro hadii markaas uu kugu soo sheegaa haddii uu Windows 10 iyo wixii ka hooseeya inuu kugu sheegaa ila wanadoyin sidoo kale halkan wuxuu kugu soo bandhigayaa luqadda waxaa kaloo halkan qoran system manufacturer kan waxaa waaye shirkadda computerka soo saartay HP waa marka sidoo kale waxaa meeshan ku qoran system module kan waa noocu uu yahay computerkaaga hadda wuxuu yahay shirkadda HP oo waliba nooca EliteBook 820 oo generation 3 ayaa qoran marka systemkiisa sidoo kale BIOS waa qaybta waxaa ku qoran iyadana N75 version ama la soo gaabiyay VRta sidoo kale processorka ayaa muhiim ah processorka inaad ogaato computerkaaga marka hadda processor ku jiro waa core Intel Core i7 yani Intel kan aqri kadibna TM10 ka buuxsatay Core i7 sidoo kale tiradan lambarkan ayaa muhiim ah asagana oo Core i7 tan ku xigto oo gooni u baxsan lambarka ugu horeeya hadda meesha waxay ugu qoran 6 sidoo kale waxa laga yaabaa in lambar kala duwan lixdan ay ku qoran tahay waxay u taagan tahay generation xilliga la soo saaray core-ka ama processorka isticmaalaysid generationkiisa hadda waa generation ani Core i7 generation 6 waaye sidoo kale speedka processorkan uu leeyahay waa 2.60 GHz ilaa wuxuu u dhaxeeyaa 2.8 GHz sidaas ayuu u dhaxeeyaa CPU-giisana waa second CPU sax camal loo isticmaalaa sidoo kale memory iyadana waa isla qaybtii waxaa waaye RAM-ka marka waa 8GB waaye marka halkan aad arkaysaa 8GB waa tirada dhan ayuu soo bandhigay laakiin sida caadiyan lambarka kore ugu horeeya ayaa laga qaataa sidoo kale page file iyadana waa 5523 yani waxa isticmaashay waa iibisay kuwan marka halkan direct versionkiisa waa direct to x12 marka halkaas muhiim ah sidoo kale waxaad soo gudubtaa qaybta systemka ayaa joogtay displayga dad soo gudubtid halkan wuxuu ku sheegaa marka graphica ku jira computerkan waa Intel HDR HD graphic 520 grafigiisa waa 520 manufacturer shirkadda soo saartay grafican waa Intel Corporation sidoo kale chip type ku jira waa HD graphic family yani nooca magaciisa waa waxaan aydan muhiim ahan sidoo kale device type iyadana waa full display device waa shaashada sidoo kale halkan waxaad fiirinaysaa meesha ay qoran tahay approximate total memory grafican xawaari memorygiisa ama awoodda uu leeyahay waa 4GB sidoo kale halkan waad ka fiirin kartaa ay qoran tahay shared waa isku qoraalkii waa 4GB ayaa qoran display memory hala hadda kuu soo bandhigayo hadda waa 128MB marka sidoo kale halkaas aad ka fiirinaysaa sidoo kale haddii aad rabtid computerka shaashadiisa yani injiga ee leedahay iyo waxyaabahaas inaad ogaatid halkan aad ka ogaanaysaa current display mode meesha ay ku qoran tahay waa 13.6 lagu dhiftay 768 waa intaas cabirka shaashada 60 Hz waaye marka 2-bit sidoo kale HDR not supported meesha uu soo qoray monitor sidoo kale monitor shaashadan
waa generic BNB monitor magaca shaashada waaye. marka sidoo kale qaybta markaad kusoo gudatid oo qaybahan kalena sii fiirin kartaa waa meesha laga ogaado kaliya waxaa ku muhiim ah lambarka inaad haysid oo meesha ku qoran lambarkaas si fiican u fiiri meeshan si fiican iskaga sii fiiri kadib sidoo kale waxaa jiro lambarka lagu ogaado maskaxda computerka yacni nooca ay tahay inay SSD tahay iyo HDD inay tahay qaybta saajinka ayaa mar labaad imaanaysaa waxaadna ku qoraysaa TFR ayaad ku qoraysaa GUI markaa qortid inta aad ku qortid abscan applicationkan ayaa kusoo baxayo markaa kadibna waxaad dhahaysaa open kadibna halkan waxaa kugu soo bandhigi doonaa qoraalkan waxaa ugu qoran hadda hard disk drive oo loo soo gaabiyey HDD haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan waxaa kaa codsan lahay inaad kusoo birtid channelkeena haddii aad kusoo biirin sidoo kale like saar muuqaalkan ma aysan